Dalka Nigeria waa dalka ugu dadka badan qaaradda Afrika, kana mid ah dalalka ugu hodansan dhanka kheyraadka. Balse ha yeeshee, kheyraadkaasi mar walba ma noqdo mid si cadaalad ah loo wada helo oo bulshada u wada gaara. Dalka Nigeria 1960kii ayuu xorriyadda qaatay, waxaana dalkaas soo maray xaalado kala duwan. Xaaladaha soo maray ayaa waxaa ka mid ah afgembi ka dhacay dalkaas muddooyin badan. Sidoo kale dalkaasi waxaa hareeyay dagaallo qabiil iyo musuqmaasuq aad u baahsan oo soo jiitamaya muddo ka badan 10 sano. Warbixinteena tani qodobka ugu weyn ee aan diiradda ku saari doono dhanka musuqmaasuqa. Nigeria waxaa lagu tilmaamaa mid ka mid ah dalalka ugu musuqmaasuqa badan qaaradda Afrika oo dhan. Warbixinteena tani sidoo kale waxaan ku eegaynaa Nigeria waxay noqotay dalka ugu badan ee ka dhacda afduubyada loo geysto ciyaalada dhigta waxbarashada iskuulaadka ah iyo macallimiintooda waxbara. Haddaba, musuqmaasuqa ka jira dalka Nigeria sidee buu u shaqeeyaa? Musuqmaasuqa dalka ka jira Nigeria waxaa kaalinta koowaad ka qaata mas'uuliyiinta dowladda, saraakiisha amniga, siyaasiyiinta iyo dadka caadiga ah, kuwaasoo adeegsanaya shaqaalaha u shaqeeya dowladda. Nigeria ayaa la sheegay inuu musuqmaasuq ku yeeshay saameyn la taaban karo. Saameynaha uu Nigeria musuqmaasuq ku yeeshay waxaa ka mid ah adeegyada bulshada oo ah kuwo aad u hooseeya. Bulshadu ma helaan adeegyada caafimaadka, waxbarasho firiya iyo adeegyada nolosha asaasiyaadka ay u baahan yihiin. Mustaqbalka dhalinyarada dalkaasi oo ah mid mugdi ku jira sababo la xiriira dowladdu aan u abuurin shaqo abuur. Sidoo kaleeto, Nigeria waxaa yaraaday maalgashiga ay ka helaysay dalalka kaleeto ee maalgashanaya markaas waddankeeda. Dhanka kaleeto, Nigeria ayaa caqabadaha ugu waaweyn haysta waxaa ka mid ah waxay la daalaa dhacaysaa xaalado amni darro aad u liita. Dalkaasi ayaa qaybo ka mid ah waxaa ka jira kooxo hubeysan iyo kooxo afduub ku shaqaysta, kuwaasoo shaqadoodu tahay inay afduubtaan bulshada hadba midka ay ka arkayaan dan gooniya. Marka la eego kooxaha argagixisada ee ka dagaalama dalkaasi ayaa lagu sheegay inay tahay Boko Haram. Kooxda Boko Haram waxay saameyn xooggan ku yeelatay waqooyiga dalka Nigeria, halkaas oo ay ka geysato weeraro joogto ah, kuwaasoo ay ku qaado iskuulada ay carruurtu dhigato, xarumaha dowladda ee lagu shaqeeyo bulshada, iyo goobaha ay dadka caadiga ah ay ku shaqaystaan, taasoo noqotay saameynaha la taaban karo ee markaas dalkaasi ka muuqda. Boko Haram ayaa badanaa ka dagaalanta Afrika qaybo ka mid ah, halkaas oo ay ka geysato weeraro kala duwan. Dalka Nigeria, afduubyada ka jira dalkaasi ee Nigeria, koox loo yaqaano bandits ayaa ka howlgasha deegaanada bariga iyo bartamaha dalkaasi, waxayna afduub u geystaan boqolaal qof sanad walba. Afduubyada ka jira dalkaasi iyo kooxaha ka dagaalamaya deegaanadaasi waxay sababtay mid barakac dadweyne. Rabshadahaasi waxay keeneen in kumanaan qof ay ka barakacaan guryahoodii, kuwaas oo hadda ku nool xeryo qaxooti. Xaaladoodana lagu qiyaasay inay tahay mid aad u liidata, maadaama qofku markuu ka hayaamo hoygiisii ay adag tahay inuu ku noolaado xero qaxooti, taasoo ay adag tahay in la helo biyo nadiif ah iyo cuntooyin caafimaad leh oo saboorti garaynaya qofka noloshiisa. Dhanka kale, Nigeria ayaa la sheegaa inay 70% ay tahay dalkaasi dhalinyaro dadka ku nool, waxaana ka jirta dhanka kaleeto shaqo la'aan baahsan. Shaqo la'aanta ka jirta dalka Nigeria ayaa la sheegay inay saameyn gaar ah ku yeelatay dhalinyarada oo ah kala bar bulshada qaybaheeda. Sababaha keenta shaqo la'aanta ee ka jira dalkaasi ayaa lagu sheegay inay tahay dalkaasi inay ka jirto waxbarasho aad u liidato, inaysan dalkaasi uusan sameynin horumar la xiriira warshadaha iyo dhaqaalaha oo ku tirsan hal dhinac ayaa sababay shaqo la'aanta baahsan ee ka jirta dalkaasi. Shaqo la'aanta ka jirta dalkaasi waxay abuurtay saameyn muuqata. Dhalinyaro badan ayaa ku khasbanaa inay ku biiraan kooxo hubeysan maadaama ay adag tahay inay shaqo helaan. Sidoo kaleeto, dhalinyaro badan ayaa u tahriibay dalal kaleeto si ay u helaan nolol maalmeed ay ku noolaadaan. Nigeria ayaa sidoo kaleeto la daalaa dhacaysa isku dhaca beelaha dega dalkaasi. Dagaalla beeleedka ayaa inta badan ka jira qaaradda Afrika, balse marka loo fiiriyo dhanka Nigeria, dagaalla beeleedku wax inta badan ka dhashaan khilaaf u dhexeeya dhulka iyo kheyraadka. Dagaalla beeleedka ka jira dalkaas ayaa wuxuu u dhexeeyaa dadka beeraleyda ah iyo dadka xoolo dhaqatada ah, taasoo ay dagaaladan ay sababaan kheyraadka markaas ka jira dalkaasi iyo sida ay u qaybsan lahaayeen iyo sida ay u wadaaqsiisan lahaayeen xoolaha ay markaa haystaan dadka beeraleyda ah iyo dadka xoolo dhaqatada ah. Dagaalla beeleedkaas ayaa la sheegay inay ka jiraan badanaa gobollada waqooyiga ee dalka Nigeria iyo bartamaha. Saameynaha dagaalkan uu ku yeeshay dalka Nigeria ee beelaha ayaa la sheegaa wuxuu sababaa kow inay dadku kala dhacaan xoolaha. Sidoo kale wuxuu abuuraa in la gubo beeraha. Sidoo kale wuxuu abuuraa dagaalla beeleedka ka jira dalkaasi inay haweenka iyo dumarku ay barakacaan. Tani waxa ay keentay in dhaqaalaha deegaanka uu noqdo mid burbura. Dhanka dhaqaalaha ee dalka Nigeria waa dal saliid laga helo, balse dhaqaaluhu ma ahan mid si fiican u shaqeeya, sababtoo ah waxaa saameyn la taaban karo ku yeeshay musuqmaasuqa dalkaasi ka jira iyo amniga. Dalka Nigeria ayaa la sheegaa inuu yahay dalalka Afrika ugu musuqmaasuqa badan, taasoo ay bulshadu
ay ka qatan yihiin saliidaha dalkaasi laga soo saaro. Dadka dowladda ka shaqeeya iyo xubnaha dowladduna ay yihiin kuwa jeebooyinta ee maamulada dalkaasi. Musuqmaasuquna uu yahay mid aan musuqmaasuqa dalkaasi ka jirin uu yahay mid aan qarsoomi karin. Dhinaca kaleeto sicir bararka dalkaasi ka jira waxa uu gaaray heer dad badan ay awoodi waayaan inay iibsadaan cuntooyinkii raashinka, kuwaasoo ay marka hore ay awoodi jireen inay u gataan noloshooda. Laakiin hadda sicir bararka ka jira dalkaasi wuxuu gaaray heerkii sicir barar midka ugu sarreeya, kana saameyn la taaban karo ku yeeshay bulshada qaybaheeda kala duwan. Dalka Nigeria, dhanka kaleeto shaqaalaha hoose ee dowladda ka shaqeeya ayaa badanaa helin mushaharaadkooda la xiriira shaqada. Haddaba marka aynu ka soo gudubno warbixinteena qaybteena horeeto aynu u nimaano qaybta afduubyada carruurta. Qaybtan waxaan diiradda ku saaraynaa afduubyada ka dhaca iskuullada ay ardaydu dhigato, kuwaasoo sanadihii u dambeeyay oo noqday kuwa saa'id u siyaada. Haddaba sidee baa loo afduubtaa ardayda dalka Nigeria? Kooxo hubeysan ayaa weerara iskuullada, waxayna afduubtaan tiro badan oo arday ah, dabadeedna waxay dalbadaan madax furasho. Sanadkii 2025 oo ah sanadka aynu hadda ku jirno, in ka badan 300 oo arday ayaa laga afduubtay dalkaasi. Sidoo kale waxaa la afduubtay 12 macallin oo ah macallimiintii u dhigayay waxbarashada qaybaheeda kala duwan. Gobolka ay ka dhacday afduubyada tani ayaa waxaa ka mid ah gobolka lagu magacaabo Niger State. 2024kiina in ka badan 227 arday ayaa laga afduubtay iskuul ku yaala gobolka Kuduma. Sanadkii 2021kii iskuul ay dhigan jireen gabdhuhu ayaa laga afduubtay 279 hablood. December 2020kii 300 oo wiil oo iskuul boarding ku jiray ayaa laga afduubtay dalkaasi ee gobolka Katsina State. May 2021 in u dhaxaysa 100 ilaa 200 arday oo dhiganay iskuul diiniya ayaa la afduubtay. Waxaa laga afduubtay gobolka Niger State. Tirada ardayda la afduubtay ee dalkaasi Nigeria markii la isku dar ayaa gaaraysa 1683 arday, kuwaasoo laga afduubtay iskuulo kala duwan oo waxbarasho. Qaarkood ayaa waxaa la socda afduubyada tan loo geystay ardayda macallimiintii waxbarayay ee siinaya culunta qaybaheeda kala duwan. Afduubyada tani ayaa waxay saameyn ku yeesheen waxbarashada dalka Nigeria. Kubanaan arday oo ka mid ah ardayda Nigeria ayaa joojiyay waxbarashada. Iskuullada dalkaasi ka jiray ee gobollada qaar ayaa badankood xirmay. Waalidiintu waxay ku jiraan cabsi joogto ah maadaama ay ka baqayaan haddii loo diro ilmihii waxbarashada inuu la kulmi karo afduubyo kala duwan oo ay waayi karayaan ilmahoodii. Dhanka kaleeto Nigeria waxay la daalaa dhacaysaa kala duwanaanshaha qabiilka. Dalka Nigeria in ka badan 250 qabiil ayaa dega, taasi oo mararka qaar dhalisa isfahan la'aan siyaasadeed iyo dhaqaale, maadaama ay bulshadu ku kala duwan yihiin dhaqan ahaan iyo dabeecad ahaanba iyo deegaan ahaanba. Tani waxay abuurtaa mar walba qallaasa siyaasadeed oo ka jira dalkaasi. Sidoo kale waxay fududeysaa oo qayb ka qaadataa musuqmaasuqa, maadaama ay badanaa isku jeestaan qabiilada dalkaasi degaan, badanaana uu ka dhex abuurmo dhexdooda dagaal qabiileed. Sidoo kaleeto siyaasiyiinta dalkaasi ayaa badanaa waxa loo jeediyaa eedeyn. Siyaasiyiinta qaar ayaa lagu eedeeyaa inay colaadda iyo amni darrada ay ku sii durkiyaan dalkaasi si ay u gaaraan markaas dana siyaasadeed oo shakhsi oo iyagu ay leeyihiin. Marka aynu eegno doorka ciidamada ee dalka Nigeria, ciidamada dalka Nigeria ayaa ku dadaalay inay la tacaalaan kooxaha hubeysan ee ka jira dalkaasi, balse waxaa jira cabashooyin badan oo ku saabsan dhanka tababarka ay soo qaataan ciidamada dalkaasi iyo qalabka ciidamadu ay isticmaalaan oo ah kuwo aad u yar. Taliyaha ciidanka dhulka ayaa maruu hadlayay ayaa sheegay in ciidamadu aysan haysan miisaaniyad hoose, taasoo saameyn ku yeelatay hubka ciidanka iyo qalabku ay ciidanku isticmaalaan iyo tayada howlgallada. Qayb ka mid ah miisaaniyadda loo qorsheeyay ciidanka ayuu sheegay inaan la sii deyn. Sidoo kale taliyuhu wuxuu sheegay in tan sababtay xaalado dhaqaale oo ka jira dalkaasi. Taliyaha maruu hadalkiisa sii wata ayuu sheegay taasi waxay keentay in ciidamadu aysan helin qalab casri ah, nidaamyo dabagal iyo gaadiid ku filan ciidamada dalkaasi. Dhanka kaleeto taliyaal badan oo ka mid ah ciidamada dalka Nigeria ayaa sheegay in tirada shaqaalaha ciidanku aysan ku filnayn baahida amni ee dalka, gaar ahaan marka loo tixgeliyo dadka ku nool dalka Nigeria. Dalka Nigeria ayaa la sheegaa hoos u dhac xiriir oo u dhexeeya bulshada iyo ciidanka. Tan ayaa la sheegay inay ka dhalatay musuqmaasuqa ka jira dalkaasi, inaysan bulshadu badanaa aysan ku kalsooneen ciidamada ku jira howlgallada dalka, ayna adag tahay inay u gudbiyaan xogaha sirdoon ee markaas helaan bulshadu, maadaama bulshada iyo ciidanku ay yihiin kuwo wada shaqeeya. Dhanka tiknoolajiyadda waxaa la sheegaa in ciidamada Nigeria ay isticmaalaan tiknoolajiyad qadiimi ah. Sidoo kale waxaa la sheegay ciidamada dalka Nigeria ay la tacaalayaan farsamooyin duugoobay ama qalab aan ku filnayn baahida amni, sida qalabaadka duulista, gaadiidka iyo dagaalka, iyo aaladaha loo isticmaalo xogaha sirdoon, kuwaasoo ah kuwo duug ah oo aan la jaan qaadaynin casriga maanta aan ku jirno. Haddaba kuwani oo dhan waxaa la sheegaa inay saameyn ku yeelatay haweenka dalka Nigeria. Haweenka Nigeria dalkaasi waxaa la sheegay inay la kulmaan dhibaatooyin badan oo la xiriira kufsi ka jira dalkaasi, barakac, shaqo la'aan iyo culeysyo soo food saara qoysaska.
dalka Nigeria maadaama uu yahay dal ay saameysay musuqmaasuq aad u baahsan waxaa la sheegaa in carruurtu ay yihiin kuwa ugu nugul waxayna la kulmaan nafaqo darro soo food saarta waxbarasho la'aan iyo cabsi joogto ah dhanka caalamka ayaa la sheegaa in dalka Nigeria inay dowlado badan iyo hay'ado caalami ah ay isku dayeen inay ka caawiyaan Nigeria dhinaca amniga iyo horumarinta dhaqaalaha kuwaas oo badanaa ku dhammaaday fashil qaybo ka mid ah balse la rajaynayo in horumarada laga gaari doono amniga iyo horumarada dhaqaale ay noqdaan kuwo miro dhala fursadaha marka mustaqbalka ee dalkaasi ayaa la sheegaa haddii amniga dalkaasi la soo celiyo oo uu noqdo mid amnigiisu aad u sarreeyo musuqmaasuqa aadka u baahsan ee ka jira dalkaasi Nigeria lala dagaalamo ay dowladdu ay gacan adag kula dagaalanto balse dowladda laftigeeda ayaa ah midda musuqmaasuqa kaalinta weyn ka geysata laakiin haddii ay la dagaalanto dhalinyarada dalkaasina ay u samayso shaqo abuur Nigeria ayaa la sheegaa waxay noqon kartaa dalka hormuud u ah qaaradda Afrika oo dhan noqotana mid ay bulshada Afrika oo dhan ay ku xirmaan guntii iyo gunaanadkii dalka Nigeria xaalad adag ayaa ka jirta dalkaasi balse waa dal awood badan leh wuxuuna wajahayaa caqabado badan oo aad u culus oo u baahan in dalkaasi uu yeesho qorshe cad iyo mid hogaaneed haddaba daawade la wadaag maxay tahay aragtidaada ku saabsan dalka Nigeria maxaase adigu ka aaminsan tahay dalka Nigeria haddii ay tahay markii kuugu horeysay oo aad daawanayso muuqaalkeena oo ku soo gaaray waad ku mahadsan tahay daawashadaada ku soo biir oo ka mid noqo channelkeena si ay kuu soo gaaraan warbixinada aan soo gelino oo ku saabsan dalalka Afrika iyo caalamkaba iyo warbixino la xiriira arrimaha sirdoon fadlan like saaro subscribe dhaho ku soo dhawow channelkeena